maalin dhaweyto haweeney baa soo wacday in badan bay telefoonka igu soo celcelisay anna mashquul baan ahaa xafiiskaygaan joogay qiso markii dambaan la hadlay طبعا qofka iyo magaciisa iyo ma sheegayno annagoo ilaalinayna maaragtay wax badan laakiin qisadu waa qiso xanuun badan waxaan idinku sheegayna waxa weeye waxaan u baahanahay inaan ka taxadarno haweeneydaas waan wada hadalnay telefoonkii bay ula hadashay waxay tiri iyadoo ooyeysa oo xitaa aan hadli karin oo hadalkeeda aan fahmi laahay oo hinta ay ooyeysa darteed yaa waxay ii sheegtay arrin aan aad uga naxay runtii oo shoog igu riday waxay igu tidhi maanta wiil aan dhalay oo 13 jir ah yaa wuxuu ii sheegay inay niman ciyaal suuqiin ah oo superpower iyo wax la mid ah ay isticmaalayeen muddo 7 sano 7 years maba noolaba wiilku dugsiga markuu ka soo baxo jidkay u istaagaan bal dugsigay ugu tagaan iskuulkay ugu tagaan 7 sano bay isticmaalayeen rag waaweyn dhowr iyo 20 jir ah ma noola haweeneydii wax alla waxay samayso ma laha way iska ooyeysaa maxaan sameeyaa bay lahayd ila taliya waxay la qabta wiilku intuu kaxeeyey ayuu wuxuu tusay qaar ka mid ah raggii faaxishada ku sameynayay korka ka tusay waa islii meel kale ma اللهم استعان gabadhii haweeneydii ama hooyadii waxay tiri aabihiis hadduu waxa maqlo suurtagal waxa horta nimankii inuu dilo oo gacan ula tago oo kow ka siiyo dilba dhiig inuu daadiyo shakiga ma jiro inuu dili taaday dhacdana waa ka sii daran tahay sheekadu bal xataa wiilkan ka yaabay inuu dilo uu yiraahdo khalaas kan faa'iido ma laha uma sheegi karto odayga way ka baqaysaa waxay kaloo ku leedahay nimanka hadda taqaanaan dhimal askar baa loo dhibay waa la xirxir baan ku yiri tad askaraho ciidanaha muslimiina jiree hayaga tii loo sheego nimanka waxa sameynaya umada laga qabto hal xirxir ma haday taas dhacdana qadiyadii waa la ogaan waa nuceeboobi wiilkayga mustaqbalkiisa iyo qoys ahaan oo dhanba ceeb baa nagu dhacay taana mar raba inaan sameeyo يعني مجتمع دبك هيستا بان ربا inaan idin sheego yani mujtamaceena dibka haysta dib yar ma aha talooyinka asiyay waxa kamida dabarta inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u laabato wiilkana wiilku markii dambe uu isdhiibay caruurtan hadda iskuulada iyo dugsiyada aan geysanayno ma ka warhayna xaalkooda si waan u eedeeyay gabadha waxaan ku yiri wax 7 sano socday inaad adoo hooyo garan weydo horta gaabis baa meesha ku jiraan ku yiri midda koowaad hooyadu door weyn beelada ilmaha dhaqdhaqaaqiisa meeshuu aado jirkiisa wax walba waa inay ogaato laakiin maxayna lagu saliday naaga guri ka shaqeeya damba kama la hooyadii kuwaas laga yaabo hadii xataa kuwa yareeyna loo qabeynay inay u qubeeyaan waxba kama oga dumarku waxba kama oga badan kamida runta fiican soma هذه مصيبة
مسؤولية ضرر حابان كل تلي وحكم إذا هرتا ويلكين هالكن لقاك حيو ما دام بيأفها سيدا أي تهاي لما كي لبعضها كوسا من شرين أي شوغان وحيش يكتين الصومالية كسو تشيدو الصومالي جيبان كولي مشرين كي كسو تشيدو بالمركوري حكر لح بحب إذن تقول لك أنت كوسي لح شرو وحوي حتى نفتي سوء بقيا هوش وسعنس تلاذو أبينا وش يبان كولي هدور وهدي لي وحلا قارن كرما وحلا قارن كري وحلا قارن كريم باتشرا تنو كلا وحلا قارن كرما nimankaasna waxba wiil isagu aad iyo caab malaha waa la farxumeeyay waa la xoog waa la dhibaateeyay ummadda laga qabto carruur dambe oo Soomaaliyeed iyo wiilal dambe oo Soomaaliyeedna dhibaateeyay nimankaana soo sheeg baan ku yiri meel baa looga soo haray almuhiim waxaan igu sheegay qisada waxa weeye kulligoon hooyooyin baatiin kulligeen aabayaal baan nahay waxa markaad maqasho markiiba carruurtaadii baa kugu soo dhacaysa Soomaa markiiba kuwaad eedada wahayd iyo kuwaad habarta wahayd baa kugu soo dhacaysa Soomaa jira marka Soomaaliya fidnada ka jirta meeshan wax maskaxda bani aadamka gali kara ma